بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدين الكرام أسعد الله يومكم بكل خير walaalyaal waxaad ku soo dhawaataan muuqaal ka duwan muuqaaladii hore aan idin soo bandhigi jiray kaasoo insha Allah taala ka hadlayo su'aalo iyo jawaabo oo diini ah ku soo dhawaada su'aasha ugu horeyso oo ah su'aasha koobaad ee barnaamijkeena maanta sheeg maxaa lagu magacaabaa sanadkii uu dhashay nabigeena calayhi salaatu wassalaam jawaab waxaa lagu magacaabaa caamul fiil ama sanadkii maroodiga su-aasha labaad sheeg maxaa lagu magacaabaa sanadkii ay wada geeriyoodeen nabiga adeerkiisa abi aalib iyo weliba khadiija bintu khuwaylad oo ahayd xaaskii rasuulka sal allahu alayh wasalam waxaa lagu magacaabaa sanadkaasi jawaabtu waxay tahay caamul xuzni ama sanadkii murugada sanadkaas waxaa lagu magacaabaa sanadkii la oran jiray caamul xuzni ama sanadkii murugada su-aasha saddexaad qur'aanka kariimka imise sano ayuu soo degdeganayay jawaabtu waxay tahay wuxuu soo degdeganayay qur'aanka kariimka 23 sano su-aasha afaraad waxaad sheegtaa saxaabigii lagu magacaabi jiray sayfullaahi almasluul jawaabtu waxay tahay khaalid binu waliid khaalid binu lwaliid radia allaahu canhu su-aasha shanaad kumuu ahaa qofkii ugu horeeyey ee qalin wax ku qoro jawaabtu waxay tahay nabiyullaahi idriis calayhi assalaam su-aasha lixaad sheeg qofkii ugu horeeyey ee ku hadla af carabi fasiix ah jawaabtu waxay tahay wuxuu ahaa nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam sheeg imisa albaab ayay ka kooban tahay jannada ama su-aasha toddobaad waxaad sheegtaa waa imisa albaabada jannada jawaabtu waxay tahay waa 8 albaab su-aasha 8aad waxaad sheegtaa maqrooyinka qur'aanka kariimka inta ay tahay jawaab qur'aanka kariimka maqrooyinkiisa waa 240 maqro su-aasha 9aad waxaad sheegtaa magacyada 10 saxaabi ee jannada loogu bishaaray ayagoo nool waxay kala yihiin sida tan أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب طلحة بن عبيد الله أبي عبيدة عامر بن الجراح عبد الرحمن بن عوف الزبير بن العوام سعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين سؤال قدام بيس سؤالهن ما أنت وسؤال شيء تبنات
وسؤاشي طبنات وسؤالهنا ما أنت سؤاش وقدم بيسو وحين نقض أنت بإذن الله تبارك وتعالى سيدة وعد شيكتا هويني ذي الله سبحانه وتعالى سلام ووسو ديبي ملك جبريل عليه السلام جوابته وحي تهي وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها ولا ليال سؤالهنا يو جوابها لصعدي دينك أها ما انتاس أيان كسو قبيننا وانا كمهاتسنتهين سيدا وناكسن آد أولا الصعوتين سي شير قرايا مقال كان قيمها بدن وجزاكم الله خيرا وشكر الله حسن مشاهدتكم وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك